Abdullahi Maradona wuxuu ciyaari jiray qaybta feerka ciyaarta ama ciyaarta feerka ee Soomaaliya waxa uu kamid ahaa tiimka Waxool sidoo kalena waxa uu ahaa tababaraha tiimka Waxool horyaalka qarankana waa uu u dheeli jiray waxaanu ku faraxsanahay maanta barnaamijka inuu martino ugu yahay bal waxaynu u noqonaynaa dib xoogaa iyo wadankii waagi nabadu jirtay sportska kala duwan la dheeli jiray ama dadka loo soo bandhigi jiray kaasoo dadka qayb badan oo kamid ah ay ka faa'iideysan jireen Abdullahi Maradona ama Abdullahi Beat ku soo dhaw barnaamijka waxaan jeclaa bal in yar inaad dib noogu celiso bal taariikhda ciyaarta feerka Soomaaliya goorma bilaabatay bismillahir rahmanir rahim dadka dhan iyo waan salaamaya Maxamuud intiina na fiirsanaysa ama na dhageysanaysa haddii aan ka jawaabo su'aashaadii ahayd feerka goortuu bilowday goormay ahayd feerku runtii wuxuu bilowday waqtiyo adoo kontonkii iyo xoogaa adoo 60kii gaarkiisa 60kii adoo gaarkiisa laakiin feerka aan waxaan soo gaaray 70kii baan soo gaaray feerka marka 70kii waxaan ku soo gaaray Circle Center Sportivo waxa ciyaarahay markaas oo ragga fartamayay oo fighterska ahaa oo kulula waxa kamid ahaa Sheekh Aweys Orfeyo Ahmed Sumeer Abdullahi Neero Allahu naxariisto inuu dhinta la sheegay rag badan weera Xasan rag badan oo feerka ciyaari jiray marka anigu waxaan umriinka laftigiisa uu ku jiray waqtigaas rag ciyaaray uu ku jiray marka waan ku soo gaaray waqtigaas aan soo gaaray anigu feerka aan ku soo gaaray waqtigaas ka horna Talyaaniga ayaa tababari jiray waxaynu ku tababari jireen meesha Circle Center Sportivo meesha loo yaqaanay oo xamar ku taalay ayaa Talyaaniga ku tababari jiray dabcan waxaad noo sheegtay inuu xilli hore bilowday sidee bay marka dadka Soomaalida ah ee waqtigaas feerku ama ku cusub yahay ama u xiisayn jireen madanayn jireen maadaama ciyaar feer oo aan ciyaar ahayn oo marmar aad arkaysa in si fiican isu feeray hadda waxaan daawanaynaa adiga iyo nin kala Soomaaliyeed oo sidaas oo kale feertamayo ma ciyaar feer intaad qof isaga hor imaataan in isu tureen oo rabto inaad knockout ka dhigto asaga adigana sidoo kale marka say dadka Soomaaliyeed u arkayeen feerka xilligaas walaal feerka sida runta dadka Soomaaliyeed aad bay u jeclaayeen feerka waa la xiisin jiray marka uu caawa feer jiro oo Circle Center Sportivo tigidhada iyo bileetiyada lacag kasta lagu gooyo ama lacag kasta la sheego waxa la sii goosan jiray xataa maalin ka hor baa la sii goosan jiray ama laba maalmood ka hor marka dadka feerka way jeclaayeen waxayna ku soo bixin jireen magaalada Hebel baa reenay caawa Hebel baa reenay xataa maartay farxad bay u ahaan jirtay anaa ka reenay marka ninka magaciisa la dalbayo Hebel baa caawa reenay hadii la dhaho caawa Cabdiraxmaan Qulxiyo iyo waxa ciyaaraya hadii la yiraahdo ninka la yiraahdo Umriinka dadku waxay dhigan jireen shardiyo badan Umriinka reenay waxa reenay Qulxiyo reenay ka bareen annaguna sidaasaan annaguna marka waan soo gaarnay qaybteeda annaguna markaas inaan feerkii jeclaano oo aan bilowno feerkii waan arkaa garoonka dad baa tuuran oo jooga oo idin fiirsanay marka waxa leedahay waxaan lahayn dad taageerayaal badan aad iyo aad taageerayaan caadi aan ahayn oo waliba aad u jecel baan ahayn oo rigli ah oo joogto ah oo qof kasta oo soo fuulo ringa ay siinayaan waliba bilada geesiyaal iyo amaan iyo sharaf la siinayo laga sheekeynayo intuusan wax sameeynin waxaan ka reyn doonaa caawa roonkaas ayaan kaga adkaan doonaa wareegaas ayaan kaga adkaan doonaa la dhahayo aad dadku jecel yahay waliba haday lahaan lahayd Twitter iyo Facebook iyo meelo dadka aad kala sii xiriirtaan waagaas duu jir lahayn oo ka sii fiicnaan lahayd